بسم الله الرحمن الرحيم وانكو سلامي داودي aan ku soo gudbiyo war degdega wararka laga helayo gobolka Awdal ayaa waxay tilmaamayaan in deegaan lagu magacaabo Shaadheer oo ku yaala xuduuda uu ka socdo dagaal qaraar u dhaxeeya ciidanka beesha Ciise iyo ciidanka beesha taagta daran ee Samaroon dagaalkii bilowday saaka hiirtii hore abaara 6dii subaxnimo ayaa ilaa hadda socda waxaana la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan ciidanka beesha Samaroon ayaa weerar culus waxay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen beesha Ciise taas oo la keenay in Ciisuhu ay gurmad degdeg ah helaan isla markaana dagaalku noqdo mid aad u xooggan deegaanka Shaadheer marka laga yimaado dagaalku sidoo kale wuxuu ka socdaa deegaan u dhow deegaanka Dacawaley halkaas oo la soo warinayo in daryanka hubka iyo qaraxyo waaweyn laga maqlay gurmadka ka yimid deegaanka Shaadheer goordhow wuxuu gaaray deegaan la yiraahdo Bayo Dharaar halkaas oo la soo warinayo in isna dagaalku hadda uu ka socdo ugaas Mustafa ugaaska guud ee beelaha Ciise ayaa la soo warinayaa inuu amray in duulaan cir iyo dhulha lagu qaado aaga magaalada Boorama waxaana hadda gurmadyo xoogan ay ka dhaqaaqeen tuulooyinka kala ah tuulada Cabdiqaadir Xuseen Jiddi iyo deegaano kale oo hoos yimaada gobolka Awdal oo dixda Sheekh Awaare ay ka mid tahay dhammaan deegaanada dhaca dhinaca xeebaha Lowyacade lagu haye Seelac Ceelgaal Shaadheer Bayo Dharaar Durdur dixda Sheekh Awaare bariga magaalada Boorama deegaanadaas oo dhan xaaladdu maanta waa ay qasan tahay adeega isgaarsiinta hawada ayuu ka maqan yahay tan oo adkeynaysa dabcan in si rasmi ah loo ogaado khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawac ee ka dhashay dagaalada hadda socda bogaga taageera maamulka Ciisaha ayaa lagu qoray in deegaanka Shaadheer deegaanka Bayo Dhareer deegaanka Durdur deegaan u dhow deegaanka Dacawaley deegaanka tuulada Cabdiqaadir Xuseen Jiddi iyo deegaano kale oo hoos yimaada dagaaladu ay yihiin kuwa aad u culus isla markaana la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waliba aan kugu dare deegaanka la yiraahdo Shaadheer iyo deegaanka la yiraahdo Bayo Dharaar deegaanka la yiraahdo dixda Sheekh Awaare saddexda deegaan cidii gacanta ku haysa waxay u sahlanaan kartaa inay magaalada Boorama qabsato deegaanka Shaadheer hadda gacanta waxa ku haya Ciise deegaanka la yiraahdo Bayo Dhareer waxa gacanta ku haya Samaroon deegaanka dixda Sheekh Awaarena waxa ku haya Ciise marka deegaanka Bayo Dheer hadii Samaroon kala gala wareego waxay ka dhigan tahay Boorama in saacada lagu qabsan karo khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin dagaalkan waa mid ka mid ah dagaalada ugu cuslaa ee inta la xasuusto dagaalkan wuxuu la mid yahay dagaal dhacay 17 bishii la soo dhaafay 17 bishii la soo dhaafay dagaal ka dhacay gobolka Awdal ayuu la mid yahay dagaalkan socda sababtoo ah hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha daroondooriga u dhaca ayaa si weyn la iskugu adeegsanaya dagaalka waxayna dadka arrimaha la socda ay leeyihiin hadaan la helin xal degdeg ah xaajadu faraha ay ka bixi doontaa oo waxa la arki doonaa isku dhacyo waaweyn oo ka weyn tii hore loo arkay khubarada aan la hadlay waxay leeyihiin Cabdiqaadir ninka la yiraahdo waandhe ugaas Mustafa ayaa wuxuu amar ku bixiyay in degdeg xal degdeg ah loo helo waxyaabaha la isku hayo oo ay dad badan aaminsan yihiin in beesha Ciise wada hadal ay ogashahay laakiin dhinacyo kale oo qaswadayaal ah ay arrinkan ka faa'iideysanayaan iyagoo u arka inaan xal degdeg ah la helin dagaalka ka socda halkaasi waxay ku soo kordhaa wadayaal wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa markana dawladda Soomaaliya ayaa ciidamadii ka dulqaaday taliye shub oo ah taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed waa kii hore ninkaas oo la sheegay inay markaasi uu yahay nin ay isku dhow yihiin Cabdicays lafta gareen taas bedelkeedana dabcan loo beegsaday ciidamo la sheegay inay hayb ahaan qabiil ahaan ku yihiin Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay guriga taliye shub waxayna ku amreen inuu hubka wareejiyo taliye shubna wuxuu sheegay in aysan u soo dhawaan karin oo xabada uu ku ridayo taasoo keentay in ciidamadu ay dib u durkaan qayladaan xoogan oo beesha caalamka ka soo yeertay iyo mucaaradka ayaa Xasan Sheekh Maxamuud markii dambe wuxuu ku kaliftay sheekadu inuu dib uga gurto taliye shub oo ah nin muwaadin ah isla markaana lagu beegsanayo Maxamed Cabdicays lafta gareen xiriir oo la leedahay taliye shub dhawaan mar ula kula Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud inuusan miyirkiisu taam ahayn oo nin la isku haleyn karo uusan ahayn oo hadda hadii Cabdicays lafta gareen la keeno bari uu la dagaalayo taas oo dabcan ku tusinaysa in dhinacyadu ay aad iskugu durmaantumanayaan oo xaaladdu dabcan hadda ay faraha ka baxday sida ay tabinayaan wararka la helayo taliye shub hadda ciidamadii waa laga dulqaaday jawigiisuna uu degan yahay ciidamadii ilaalin jiray ayaana ilaalinaya xogaha la helayana waxay tilmaamayaan
in xal degdeg ah loo helay arrintaasi oo haddii sidan xaaladdu ay ku sii socon lahayd dowladnimada Soomaaliya xataa ay qeylqeyl geli lahayd xasan sheekh maxamuudna dabcan waa loo caqli celiyo oo waxa lagu yiri waxaan aawadid wax soconaya iyo wax caqli gal midna ma ahan ee jooji waxa wadid taas oo keentay ayaa la leeyahay inuu dib uga durko dhinaca kale magaalada Buurha Kaba oo ka tirsan gobolka Baay xaaladdu wali way kacsan tahay mucaaradkii u dagaalamayay sida kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ayaa la soo warinayaa inay hub isku dagaaleen dhimasho iyo dhaawac ayaa jirta Cabdicasiilafta Gareen halkaas waxay u tahay fursad uu ku weerari karo maleeshiyaadkan kooxda shabaab u eg ee halkaas lagu ururinaya kuwaas oo diidan nolosha iyo xasiloonida shacabka reer Koonfur Galbeed wararka la helayana waxay tilmaamayaan inay u badan tahay in ciidamada Koonfur Galbeed halkaas ay weerari karaan isla markaana wax dhintay iyo wax la soo qabtay ay ka dhigi doonaan kooxda halkaas isku urursanaysa waxay ku soo kordha daawadayaal wararkaas iyo wixii nagu soo kordha wararkeena dambe ayaan idinku soo tibin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan sharaf iyo karaamo muuqaalka hadduu ku soo gaaray like saar channelka subscribe dheh wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacno ayaan mar walba daawadayaal idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal